السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وائل 25 سنة أيان جرا وحان لنوله qoyskayga welina ma guursan laakiin waxaan soo maray xiriir jecel oo la yaab leh sidoo kalena xanuun badan aan idin bilaabo sheekadeyda 2 sano kulliyada fanka anoo baranaya ayaa maalin anoo masrax fuula waxaan arkay gabar da'deeda oo kala ah aadna u qurux badan ayaa masrax ila soo fuushay codkeeda ayaan ka helay waana jeclaaday marka ay xafladda noo dhamaatay ayaan la kulmay waxaana ku dhahay marxaba magacaygu waa Waa'il aad ayaan ugu farxay ka qayb qaadashadaada codkaada waa macaana waxay igu dhahday waad mahadsantahay Waa'il waxaan ku dhahay kuguma arki jirin jaamacadeena goormay ayaad ku soo biirtay waxay igu dhahday maanta ayaa igu horeyso Kanada ayaan ku dhashay meesha ayaan ka imaaday waa la yaab adoo Kanada joogay Masar maxaa ku keenay Waa'il waa qiso aad u dheer hadda kaagama sheekeyn karo hay ayaan ku dhahay waan ka xumahay haddaan si qaldan kuula hadlay laakiin ilaa hadda magacaaga ima aadan sheegin magacaygu waa Samar haye Samar waan ku farxay barashadaada kadib guriga ayaan ku laabtay inaan wax sawir ayaan bilaabay waxaana ka fikirayay qisada Samar waxa ay tahay wajigeeda murugo ayaa ka muuqatay maalinta ku xigtay waxaan soo bandhigayay sawiradeyda Samar ayaa igu dhahday ma adaa sawiray ayaan ku dhahay sidoo kale sida wax loo sawiro ma taqaanaa sidoo kale sida wax loo sawiro waan aqaanaa waxay igu dhahday waa sifada labaad aan wadaagno anna sidoo kale wax sawirka aad ayaan u jeclahay waxaan ku dhahay runtaada miyaa waxaa laga yaabaa waxyaabo kale oo aan wadaagno inay jiraan waan ogaan doonaa ayagana waxay igu dhahday sidaas ayaa laga yaabaa waxaan ku dhahay haddaan wax isla sawirna sidee u aragtaa sidaasna waad isku mashquulin kartaa mar dhow ayaad meeshaan imaaday cid kuu joogtana ma lahan sidaan filaayo waxay igu dhahday waa runtaada waana kugu waafaqsanahay inaan kula shaqeeyo haddaysan dhib kugu ahayn maya waan ku farxayaa waxaan bilownay inaan wax isla sawirno sawiradeennana dadka dhan ayay soo jiiteen mararka qaarna xafladaha ayaan ka heesi jirnay arrimahaasna waa ay sababeen inaan isku soo dhowaano maalin walbana waan kulmi jirnay waana sheekaysan jirnay hooyo Faatmana way noo imaan jirtay Samar ayay aad u jecleed inay ula sheekaysato bil ayaa ka soo wareegatay waxaana go'aansaday inaan u sheego inaan ayada jeclahay aana rabo inaan guursado tilka ayaan soo qabsaday waan wacay waxaan ku dhahay Samar ma ii imaan kartaa arrin ayaan rabaa inaan kuu sheego haye ayay igu dhahday waan ku sugayaa ayaan ku dhahay way ii imaaday waxaan ku dhahay Samar aniga waan ku jeclaaday waxaana rabaa inaan cidaada kaa soo doonto maxaad i leedahay diyaar ayaan u ahay wax walba oo aad i dhahdo nasiib wanaag way i waafaqday aad ayaan u farxay waxaan ku dhahay cideeda ayaan u soo sheegayaa sidoo kale adna cidaada u soo sheeg si aan u dadejino xafladda arooskeena waxay igu dhahday laakiin qoyskayga ilaa hadda maanan helin waxaan ku dhahay maxaad ula jeedaa Samar way ooyday waxaan ku dhahay isdeji Samar fadhiiso wax walbana ii sheeg si xanuun uu ku jiro ayay igu dhahday Kanada ayaan waxaan kula noolaa aabe Maazin iyo hooyo Amal si fiican ayay ii soo barbaariyeen markii aan 23 sano gaaray labadoodaba shil gaari ah ayay galeen anoo asxaabteeda la socda ayaa talka layga soo wacay waxaana lee sheegay aabe iyo hooyo in ay shil galeen haddana ay isbitaalka yaalaan cinwaanka isbitaalka ayaan qaatay isbitaalkii ayaan gaaray xaaladooda aad ayay u xumeyd wax yar hadal ayaan isdhaafsanay hooyo ayaa igu dhahday hooyo gabadheyda Samar waan ku jeclahay gabadheyda oo kale ayaan ku soo barbaariyey wax walban waan ku siiyey laakiin hadda waa inaad ogaataa xaqiiqda waxa ay tahay waxa aan ku dhahay hooyo waan ku baryaa ha hadlin xaaladaadu waa ay xun tahay maya gabadheydii waxaa qasab ah inaad xaqiiqda ogaato inta aanan dhiman qasnada aabahaaga nin sawirkiisa ayaa ku jira ninkaas raadi asigaa qoyskaaga runta ah kuu sheegi doona marka aad qoyskaaga heshana waxaad ku dhahdaa aabe iyo hooyo waa ay ka cudur daaranayaan waxa ay sameeyeen adigana nacafi gabadheydii marka ay intaas dhahday xaaladeedii way sii xumaatay garaaca wadnahaygana wuu sii yaraaday aad ayaan u qayliyey si loo badbaadiyo laakiin nasiib xumo waa la badbaadin waayey xaaladeedii way xumaatay maalmo ayaan kooma ku jiray marka aan koomada ka soo baxayna waan iska ooyi jiray ugu dambaynna waxaana go'aansaday inaan qoyskayga rumaad ee ii sheegtay hooyo Amal raadiyo qasnada aabe ayaan furay waxaana ka helay waraaqooyin oo fariimo ah oo ay ii qoreen hooyo Amal iyo aabe Maazin iyo sawirka ninka lee sheegay waa ninkii aniga iga gatay aabe Maazin iyo hooyo Amal sawirka gadaashiisana Masar ayaa ku qornaa sidaa daraadeed waxaan
ogaaday inuu Masar joogo. Inta ayaan imaaday, waa raadiyey, laakiin ilaa iyo hadda maanan helin. Samar ayaan ku dhahay, sawirka ninka ma i tusi kartaa? Waxaa laga yaabaa inaan gartee. Haa, waan ku tusi karaa ayay igu dhahday. Marka aan sawirka arkay, waa naxay. Waaba adeer Axmed oo beerteena ka shaqeeya. Samar ayaa wejigayga dareentay, waxayna igu dhahday, Waa'il ma taqaanaa? Haa ayaan ku dhahay, waan aqaanaa. Waa adeer Axmed, beerteena ayuu ka shaqeeyaa. Haddii ay sidaas tahay, hadda ii geey. Haye ayaan ku dhahay, ina keen. Inta aan gaariga sii waday ayaa hooy iyo aabbo wacay. Waxaana ku dhahay, guriga ayaan u soo socdaa. Adinka iyo adeer Axmed isla jooga. Guriga marka aan gaarnay, adeer Axmed ayaan ku dhegay. Waxaana ku dhahay, maxaa sidaas u samaysay? Waa'il maxaan sameeyey ayuu igu dhahay. Samar ayaa ku dhahday, qof daacadda ha iska dhigin, qoyskayga aawa ii sheeg. Wuxuu dhahay, wax dhan ma fahansani. Yaa tahay adiga? Samar ayaa ku dhahday, waxaan ahay Maazin, ninkii taajirka ahaa gabadhiisa ayaan ahay. Adeer Axmed aad ayuu u naxay, wuuna cabsaday. Inuu cararo ayuu isku dayey. Waan soo qabtay, booliskana waan u wacay. Kadibna wax walba ayuu caddeeyey. Wuxuuna sheegay Samar in ay tahay aniga mataantayda. Kalkaalisada ayuu la heshiiyey. Samarna wuxuu ku bedelay gabar kaloo meyd ah. Sidaas ayuu Samar wuxuu kaga gaday qoys madhalays ah. Waxayna ahaayeen Maazin iyo Amal oo soo barbaariya Samar. Waxaa la bilaabay in la baaro DNA-da. Jawaabta soo baxday iyo hadalka adeer Axmed way iswaafaqeen. Sidaas ayuu adeer Axmed xabsi ku mutaystay, iyo sidoo kale kalkaalisadii caawisay. Aniga iyo Samarna jaceylkeenii naga dhexeeyey wuxuu isku bedelay walaaltinimo. Hadda si farxad ay ku jirta ayaan ku wada nool nahay. Ilaahay ayaa ku mahadsan. Waqti badan kadib na kulmiyey, iina soo celiyey walaasheeda Samar. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo. Nabadgelyo.